السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن وناكسن دمانتين aad ayaad u mahadsantihiin waqtiga qaaliga ah ee aad u soo hurteen inaad nagala soo qayb gashaan kulankan aan ugu talagalnay inaanu ku xusno kuna xasuusano walaalkeen naga geeriyooday 17kii bishan Allah u naxariistee Axmed Xasan Cawke oo isagu ahaa macallimiinta ama tiirarka ugu adag saxaafadda Soomaaliya soo maray ama han noqdeen kuwii berigii uu soo galay ku jiray saxaafadda ama han noqdeen kuwa imika ku jira ahaa nin ay wax badan ay ka dheegan jireen ama ka qaadan jireen ama ku dayan jireen ama hiigsan jireen Allah u naxariisto kulankanna isagaan ugu talagalnay meelo badan oo dunida kamid oo Soomaali ku nooshahayna waa laga sameeyay jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool wadanka Holland guud ahaanteeda oo aan u kala harin ayaana ugu talagashay kulankan inay qayb uga noqdaan dadka Soomaaliyeed ee aan u kala harin inay u duceeyaan geeridiisa kuna xasuustaan ayaa barnaamijkan uu ahaa waxaan uu nooga dhacayaa magaalada The Hague ee wadanka Holland barnaamijka wuxuu badidiisu ahaan doonaa qof waliba inuu ka hadlo aqoonta iyo waxa uu ku xasuusan doono Axmed Xasan Cawke iyo sidoo kale ducada uu raacinay sababtoo maanta waxa uu ugu baahi badan yahay waa in loo duceeyo cidii si maaragtay wax uga tabanaysan xataa inay cafiso ana huba inaysan badiba jirinba in maadaama uu ahaa nin nadiif ah waxa ila fadhiya halkan inkastoo idinkoo dhan baan isla wada fadhino laakiin de imika hadda waxa safka hore ila fadhiya ambassadorkii hore ee Soomaaliya u fadhiyay wadanka Kenya Maxamed Cali Ameeriko oo barnaamijkan tacsida iyo duceynta iyo xasuusta walaalkeen Axmed Xasan Cawke uga soo kicitimay wadanka Canada oo shalay halkan soo gaaray aad ayuu ugu mahadsan yahay qiimaha uu arintaasi gaarsiiyay iyo inuu naga aqbalay inuu nagala soo qayb galo waxa sidoo kale nala fadhiya oo ku xiga Cabdishakuur Cilmi Xasan oo kamid ah wariyaasha Soomaaliya kuwooda ugu magac weyn ee ka soo shaqeeyay magaalada Muqdisho in badanna saxaafadda ku soo jira wadanka Holland ku nool dhawaana dalka soo noqday isaguna kamid ah dadka sida weyn ee raadka ugu reebta geerida Axmed Xasan Cawke waxa ku xigto Xamse Sheekh Xuseen ha noolaato oo jaaliyada Soomaaliyeed wadanka ku nool si weyn garanayaan ama ha noqoto dhinaca ururada wax u tara Soomaalida gudaha iyo kuwa dibaddaba dhaqdhaqaaqyo badan oo gudaha Soomaaliya bari samaadka xilliga uu ka shaqo bilaabayna kamid ahayd iyo dawladii qaybo badan oo kamid ah iyo sidoo kale Sahare Naaleeye oo iyaduna Efsan kamid ah xukuumadda ay ku taagan tahay guud ahaantiina ku soo dhawaada waxaan ku furanaynaa intaasi hordhaca markaan ka soo tagno aayadaha Quraanka Kariimka maadaama meeshay Soomaali ama Islaamba isugu yimaadaan inay muhiim tahay inaan ku furano Cabdiqaadir baan u yeerayaa oo ah walaal Soomaaliyeed oo noogu furo Quraanka بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يقضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق الله العظيم waxaan imika u yeerayaa Sayid Cali Maxamed Cali Casayr oo isagu ah gudoomiyaha Hayaan Media maadaama ururada suxufiyiinta Soomaaliyeed ama wariyaasha Soomaaliyeed ee kulankan aad u soo abaabuleen waliba Hayaan Media marka Sayid Cali baan leenahay noo daafur anigoo ku hadlaya magacayga gaarka ah iyo magaca dalada Hayaan Media marka hore aad baan idin soo dhaweynaynaa maadaama aad naga aqbasheen inaad nagala soo qayb gashaan xuska iyo xusuusta anu talagalna walaalkeen Allah u naxariistay Axmed Xasan Cawke waxaan si gaar ugu mahadcelinayaa ambassador Maxamed Cali Ameeriko oo
dal dheer nooga yimid ambassador waxaan ku leeyahay mar labaad mar saddexaadba soo dhawow maanta hadal tiradiisa waxba sheegi maayo tan ugu badan oo aan ka hadli doono waxay badnaa doontaa in aan walaalkeen u duceyno anigoo ka faa'iidaysanaya jaaniskan uu siiyey cabdilbaan gariire marka hore waxaan ka codsanaya inaan saddex quluulato aan aqrino walaalkeen axmed socooke الله أقبله هيان ميديا وحي أتاجنتها مر والبو isku xirta saxaafada sidoo kale waxay u taagan tahay inaan mar walba ka qayb qaadano nabadda wacyigelinta iyo wax walba oo quseeyo nabadda Soomaaliya uma taagno kaliya inaan shaqadeena kaliya wariyaan nahay mikrofon baan qaadano wax kasto nabadda qayb baan ka nahay waana waxaan u kalif mar walba inaan soo abaabulno ama soo qaybqaabino waxyaabaha bulshada isku xiro Cabdi Ibrahim Gariir aad baad mahadsantahay adigana aad baad u mahadsan tahay waxaan imika aan guda gelayaa ambassador cali american ku daafurayaa in uu kelmadihiisa ku aadan kulankan isugu nimid iyo xuska iyo xusuusta isaga uu ku xasuusanayo allah u naxariistee axmed xasan cawke بسم الله الرحمن الرحيم مركور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبه وناكسن waxaan markor ugu mahadcelinayaa hayaan media iyo Cabdulaahi Said Ali oo ugu cazumay xuskan caawa ee jaaliyada Soomaaliyeed ee Holland ay u sameeyay Axmed Xasan Cawke walaakin Ilaahay ha u naxariisto aad baan ka mahadcelinayaa Axmed Xasan Cawke waxa way taariikhdiisa hadii la bilaabo caawa ilaa biri lama dhameyn karo nin wuxuu ahaa nagu wada weyn aniga gaar ahaan waxa way waagii hore dawladda hore ayaa isgaranaynay wariye kaliya ma ahayn aniga saaxiib weyn ahaan jiray waxaan xasuustaa 1985 lixdii aan dhahe anoo Mareykan ka imid oo jaamacad markaas soo dhameeyay ayaan xamar isku baranay waranimo kaliya ma ahayn waa garanaysaa inuu wuxuu sameyn jiray waliba aniga waxaan aad u xasuustaa markii uu taban jiray ciyaaraha sportiga saadi koonit iyo saadi muqdisho ma taqaanaa si aad u sheegi jiray oo kafta ku darana ma taqaanaa markii uu sheegi jiray oo mama miya iyo dhihi jiray ma taqaanaa Allah u naxariistee nin kafta badan buu ahaa waagi dambana xitaa Nairobi waa isku aragnay marka kulligeenba waxa way waxaan Ilaahay ugu baryaynaa inuu Ilaahay jannada ka waraabiyo eheladiisa iyo qaraabadiisa samir iimaan inuu ka siiyo qofka ma ku wanaagsan yahay ama qof fiican u ahaa waxa loo gartaa sida loogu duceeyo sidii ma taqaanaa loogu sameeyo barodiqa hadda sidoo sheegay Cabduli magaalo kasto hadda Canada ka yimid waa lagu sameeyay meelo kale London waa lagu sameeyay ma taqaanaa meelo kale badan waa lagu sameyn doonaa marka taas ayaa ku tusayso qofkaas wuxuu ahaa iyo wanaaga uu sameeyay marka hadda anaga waxa weeye waxa uu sameyn kana kaliya waxa weeye inaan u duceeyno in Ilaahay ugu barano ma taqaanaa inuu jannada ka waraabiyo heliisa samay ma ka siiyo bilkor hadayta u shigay maxalla magan u shigay waxaan aan tagay oo aan la kulmay jaaliyada Soomaaliyeed magaalada London Ingiriiska waxa laga cazumay dhalinyaro oo hay'ad leh oo la yiraahdo anti tribalism ayaa casuuntay meesha markaan tagay ayaa markaan u waramay ayaa la dhahay su'aalo hal isweydiiyo dhalinyaro waxa ahayn badankooda ku dhashay ama ayagoo yar yimid Ingiriiska way xishoodeen wiil gabdho ahaayeen wiil kamid ah oo yar meesha fadhiyay aan ku qiyaasay 16 sano jiro 17 meemaa soo jiray ayaa su'aal ku weydiinay marka si tafaftiran oo ma taqaanaa ayuu su'aal ii weydiiyay markuu dhameeyay hanaya kala soo qabo asagle afar ku laabtay markaas aan magaca markaas wiil waxa dhahay Zakariya Axmed Xasan Cawke Axmed Adalay waasbaranay ما تقانا أبيس هويت حتى وري هنجرتي ما تقانا سعديو برامج ولا حتى عن خيب قلي أو تي في جا ورستي وحبي أنا كنت على توعي هيد وحوي برامج كيجا وحده إذا بتقول حتى ممكن لها لا وحده أدر مرك والد في عن سكري وحو برامج كيجا وح أنكوش وده في إنجليز يف صومالي وأودي ممكن حدها أنا برامج كي دنيرة واي وحاول تلقلني إن دنيرة كل شيء أما أيقو يري من إنجليزك إني فهمان
mataqaana waxaan sheegayno iyo mawduuceena marka wiilkaasina asagana ilaahay aabiis allah sameeyay ka siiyo marka mar kale insha Allah taala kulligeen baa awood duceyno walaalkeen dhintay Axmed Xasan Cawke ilaahay jannada Allah ka waraabiyo amiin aad ma hadsan tahay waxaan imikana aan siinayaa Abshuur siyuubul asagana kelmadihiisa ku aadan u jeediyo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulay waxaan u maleynayaa wixii hadalka intiisii xubinta ahayd waa la yiri waxaan anaga caawa halkan isugu nimid inaan ka qayb qaadano tacsida loo sameynayo walaalkeen Allah u naxariisto Axmed Xasan Cawke qof waliba Soomaaliyeed inta hadda maaragtay ku barbaartay burburkii ka hor iyo intii kale hadda kadib dhalatay baa qof taariikhdiisa laga dharagsan yahay ayuu ahaa sifooyinka qofka wanaagsan lagu garan karana waxay ka mid tahay sida diintu ay sheegtay in maanta Soomaali meel kastoo ay joogto gudaha iyo dibadda loo baroor diiqay laga wada xumaaday geeridiisa loo wada duceeyay inta kaliya maanta noo qaban karana waxay tahay in loo duceeyo Ilaahay looga baryo inuu kitaabkiisa midig ka siiyo qof kastoo Soomaali waa markii ugu horeysay oo qof ama saxafi ah magac saxaafada ku dhaxelo oo intaas oo maanta Soomaali guri kastoo ay degan tahayba loogu baroor diiqay waxaan isleeyahay anigu kulay yani maanta meeshii Ilaahay ugu talagalay joogaa inta ay qof kastoo Soomaali u duceynaysana waxa waaye maaragtay waa wax weyn waalidkii iyo ehladii iyo dadkii uu ka tagayna samir iimaan Allah ka siiyo aad ma santaa intaanan u gudbin Xamse iyo Sahro wax yar waxaan rabaa inaan ka taabto xusuusta gaarka ah nagu yeelanayo saaxiibkeen Allah u naxariistay Axmed Xasan Cawke waxyaabaha uu Axmed Xasan Cawke caanka ku ahaa mar laga wareystay isaguna ka hadlayay waxaan ka hadlayaa wax isagaan ka soo xiganay waxa kamid ahaa mar la weydiiyay waxa la warwaniyo maxaa kuugu darnaa warar aad samayso oo yaab leh marka waxa uu yiri Allah u naxariistay maalin baan war ka soo qaaday madaxtooyada warkuna waa wareegtadaasna waxa xilka looga qaadayaa wasiiro waxa iga soo raagay buu yiri gaariga qaadi lahaa oo igila xarunta dabadeedna waxa liftiisi ama hore isi qaadayba gaari wasiir uu wato wasiirkaas markuu istaago soo qaadiyo shaqadan ku geynaya wasiirka i wada warka aan wado isaga ku jira kuwa xilka laga qaadayo waxa igu adkaato yiri ninka saa ii soo dhaweeyay inaan u sheego waxaan wado haddana waxaan ku qasbanaa warkan inaan idaacada ka sheego isagana waxaan ii sameeyay ahsaanka darteedna uguma sheegi karo marka waxay danta igu qasabtay labadii doornimo warkii aan akhriyay inaan ku sheegay ninkii soo dhaweeyay war xilka looga qaadayo ninkiina hadhowti deebarina uu isgeli karaa labadiisa warning ma kula socday wuxuu warku siin waa waxyaabaha iigu yaabka badan soo xasuustay kamid uu yiri waxyaabaha kale uu Cawke lagu xasuusto waxa kamid ah mar la yiri maxaa kuugu darnaa iyadana laftigeeda oo la tiraadid alla ilaahay ma mudnayn ina warka samayso wuxuu yiri waxa igu darnayd markii wadaadada la dilay baa warka igu soo aaday labadii doornimo dabadeedna si aan uga warwareegaan garan waayay dhowr jeer baan isku dayay rag badan oo wariyaal ah oo teera kamid yahay hadda jooga London baan u tago yiri dabadeedna wuxuu yiri niman iga qabta kan hebel mid walba dhuunta qabsaday wala dhuunta ayaan xiran mid kale wuxuu dhaw waran caruurtii waxa sababta in walba wuxuu ka jaakeerayaa yiri ama ka cararaya warkan anigoo yaaba mana diidi karo warkan ma bedeli karo yiri warku nooc wuxuu u qoran yahay Ilaahay og yahay iyo wadaadada waxa ku dhacayo anigoo yaaban baa waxa igu dhacday markaas adigu diyaarada soo dhacay xaafaday ku dhaceen markaas xaaladu horta warkii miisaanku lahaa war kale ka miisaan culus baa yimid danta waxa igu qasabtay yiri marka inaan warkii loogu talagalay inaan wadaadada ku hormariyo inaan dad dib u dhigo aan kan ku hormariyo waliba kan aan si boobsiis ugu aqray markay xoogaa kan ku mashquulaan inaan hoosna ka geliyaan dhowr wadaadna maanta la dilay ka gudbo saysan day u sii dhihin akku Ilaahay kula takaas inay baashiisa ii saameyn waxyaabaha igu xanuunka badan oo aan ka soo shaqeeyay bay kamid ahayd buu yiri marka waa goosgoosanayna warku hal mar idinku sii deyn maayo waxaan siinayaa Xamse Sheekh Xuseen Hanoolaa Axmed Xasan Cawke wuxuu ahaa aqoontayda way aragnimo howlo badan baan isla qabanay
madaxtooyadii markuu joogay uu ahaa wariyihii gaarka ee madaxweynaha. aniguna waxaan ahaa xogeynta guud ee xogeeyihii guud ee xisbiga. si gaara ayaan isu qusaynay howlihiisa. meeshuu madaxweynaha joogo ama xogeeyihii guud ee xisbiga anna waa joogay, asna wuu joogay. nin aad iyo aad u qiimo badan oo yaqaan waxa markii ilaahay haybad kuu siiyo iyo markaad barato waa kala weyn yihiin. ilaahay haybad buu u siiyey, saxafinimadii uu ku caanbaxay, wariye qaran buu ahaa. wuxuu ahaa nin soomaalinimadu ay ku dheer tahay. run ahaantii wuxuu ahaa nin sheegi kara waxa uu tabinayo, nin sheegi kara, nin aan waxba ku darin, nin aan hilmaamaynin sida iyo waqtiga iyo goobta uu ka sheegayo. waxaan siinayaa saaranaale annagoo waqtigana ku xisaabtami doono insha allah. bismillaahi raxmaan raxiim. aniga kuma celcelinayo wixii la dhihi kara waa la dhahay. waxaan marka hore horta tacsi u dirayaa macnaa familka iyo qoyska uu ka geeriyooday walaalkeen iyo caruurtiisii iyo xaaskiisii dhammaan. runtii aniga ahaan shaqsi ahaan aniga lama aan shaqaynin, laakiin waxaan u ahaa weligay taageerayaashiisa. wariyaashii waa ogtihiin muxuu ahaayey dadka ma yaqaanin, laakiin ayaga waa la yaqaanaa. marka aniga gaar ahaan waxaan ka heli jiray marka waqtigii ugu dambeeyay hataa Universal barnaamijka oo wareysanaya muxuu ahay fanaaniinta. macnaha waa sugi jiray because markasta waxa waaye kaftankiisa iyo dadka macnaha sidoo su'aalaha u weydiinaya waxay ahayd barnaamij macnaha wax ilaahay talent uu siiyay macnaha sidii macnaha Abu America uu sheegay macnaha qof iska kaftan badan oo runtii aan lagu caajisaynin. iyo runtii muxuu ahaayay barnaamijka aniga Soomaaliya waa xasuustaa dadka kacaan ku soo barbaaro wax ku soo bartaan ahay. muxuu ahay wuxuu sheegi jiray barnaamijka ciyaarahana aad ayuu macnaha u sheegi jiray, waan xasuustaa. iyo barnaamijyada iyo ciyaaraha macnaha meel kasta aad cawka aad u qaadaba muxuu ahay Axmed Xasan Cawke meel kastaba wuxuu ahay wuu ku fiicnaa. taasna waa wax ilaahay huba u siiyay. marka waxaan u rajeynayaa muxuu ahay in ilaahay u naxariisto, muxuu ahaayay in dadkiisa familkana ilaahay ka sabar siiyo. aad u mahadsan tahay. waxaan u malaynayaa markan waxay ku soo wareegtay gediga kale. waa tahay gacantaada taagay. horta marka la yiraahdo ninka ugu magacaabay ama dadka ka mid ah loo wada garanayo Axmedna ilaahay naxariisana ka wada magacan dheer ayaa la yiraahdo maanta waa ninkii bixiyay si gaar ah taabisa aniga waxaan leeyahay qaraabadii qoyskii eheladii waliyaashii ilaahay sameeyayna ka siiyo inaad u ducaysaan waxyaabo badan oo aynu ku xasuusan karnaa. waxa ugu horeeya marka la yiraahdo bahda sportiga, anigoo ku hadlaya magaca bahda sportiga hadda meel walba SMS-ka laga soo dirayo ay leeyahay taasida hanaga reebina wariyayaasha unbaa u leeyahay sportiga ayuu ka mid ahaa. waxaanu ahaa in qadarin iyo tixgelin u mudan waxaan dheeraynaynin qof walbaaba uurka iyo niyadda uga duceeyo siniriina in Allah ka siiyo ehelada qaraabada iyo dhammaanteen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا الله وإنا إليه راجعون. أحمد حسن سوفي علمي، أحمد حسن عوكي أبي بعوكي لو رنشري نانيستيسا، لكن ما قعيش صعدي بحوي أحمد حسن سوفي علمي. أحمد حسن عوكي الله نحرسته وريه قرن بوها. أنا وسكو مقالة كل لاني مقالة اللي جات تقوى شالي أيو كل شيء. halkaasuu ku barbaaray dugsigiisii sare dugsigiisii hoose halkaasuu ka soo galay, laakiin kii dhexe iyo kii sareba camuud ayuu ahaa. markuu secondariga ka baxayna wuxuu galay idaacaddii muqdisho. allah ha u naxariisto, nin qaaliya buu ahaa. bahda isboortiga iyo bahda wariyaashaba waan ka tacsiyadaynayaa iyo eheladiisii iyo qoyskiisii iyo caruurtiisii. allah u naxariisto. dadkan ka soo qayb galayna aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. ilaahayna ajar ha idinka siiyo.
wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waxaa la yidhaah maxamed cabdisamed, waxaan ka mid ahaa Somali Airlines injineeradeedii. Holland dadkii ka guuray baan ahaa, laakiin ku soo noqday hadda kuwii ka qaxay mar labaad baan Holland ku soo noqday. marka waa kullu shay yarjicu ilaa aslihi. maantana mar haddana halkan idinkaga qayb galay, alxamdulilaahi. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. axmed xasan codku waxaan iskula jirnay xalane, marka asaga waxaa lagu qoray wasaaraddan warfaafinta, anigana howlaha guuda lagu qoray. si gaara haddana markii wariyaha isboortiga uu noqday nin ila dhashay cismaan xaalan la yidhaa ama xarash iyay saaxiibo ahaayeen oo mar la arkaayo kontaktaan lahayn waa isu imaan jirin. yacni waxyaabaha oo aad aan uga helo waxay ahayd, wuxuu yidhi ani dhoobayaan ku dhashay, nin dhoobay ku dhasha ahay, marka waxaan rabaa wuxuu yidhi soor ama muufale baasta iyo bariis marra oo dhihi jiray. yacni waxaan aad uga helaa oo dhahay waxyaaba oo aad uga helay ahayd. marka alxamdulilah axmed waxa waaye hadda waxaa aragtaan ama maqlaysaan sida maaragtay meelaha kala duwan loogu dhigay. waqtigii asxaabta oo nabiga jooga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa jiray galbaha ka mid ah ayagoo fadhiya ayaa meyd la soo marsiiyey. markaasay asxaabtii waxay yidhaahdeen war yaa dhintay hebel innaa lilaahi war waxuu ahay kaas. xakamtum oo yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam, meyd kale haddii la soo marsiiyey yaa dhintay hebelaa dhintay, subxaanallah ilaahay u naxariisto. waa u duceeyeen asxaabta, xakamtum oo yidhaahdeen. marka aniga hadda waxaan idin leeyahay xakamtum axmed inuu qof fiican ahay, ahlu jinnana ilaahay ka dhigi doono aanu u baryaynaa. intaanoo dhanaa wada dhehayso waxa waaye ahlu khayr u ahay. asalaamu calaykum, innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa wariyeena sharafta iyo qaaliga iyo qiimaha soomaalida ku dhex lahay. aniga reer hadal ma ihi, laakiin waxaan sheegayo tixan ku sheegaa. marxuun cowkaan ducaadaanu marinaynaa, marxuun cowkaan ducaadaanu marinaynaa. markii ou meyday duniyadoo dhanahay maqleen, waanka madluunay Soomaali meelay jirtaaba, magacaad kulahayd adduuna qirana ku muudo, mowlaa ku geeya makaankii jannada. murug la'aan kitaabkaaga midig ku qaabo, martii laga jecelyaho loo maciina noqo. waxaan mahad gaara u celinayaa ayaan media oo soo qabanqaabisay iyo howlaha sidaan u qiimaha badan oo kale ay ummadda Soomaaliyeed u wadaan, shaqada ay u wadaan. aad bay ugu mahadsan yihiin, iyo inta isku soo xilqaantay inay tacsida xasan axmed cuuke ka soo qayb galaan. anigu run ahaantii waxay la tahay qof kastoo Soomaaliya inta wixii 20 jir ka weynay inay garanayaan axmed xasan wuxuu ahaa nin aad iyo aad u dhaqan wanaagsan, Soomaaligana aad u yaqaana. qofkuna hadduu runtii uu Soomaaliga uu luqadiisa si fiican u yaqaano, uuna dhaqankiisu wanaagsan yahay, wuu garanayaa waxa uunan wixii qalada ee ka dhici kara iyo wixii wanaaga ee ma garanaysaa uu warka ku tabinayo. run ahaantii axmed ammaan badan uma baahna, ilaahay baa abuurtay, ilaahay abuurtay ayaana uu u noqday. wuxuu nooga baahan yahay maanta inaanu u ducayno oo aynu maaragtay u ducayno, qalbigana ku hayno, ilaahayna ha u naxariisto. janannada iyo dadka magacyada ummadda Soomaaliyeed ku leh ee dhimanaya caadi bayba noo noqotay. waxaan aad iyo aad uga naxay run ahaantii ninkii la oran jiray Gabiyow markuu dhintay. runtii aad baan u naxay, waxaana uga naxay sida ciidankayagii uu u baabi'i doono iyo ma garanaysaa ciddanna difaaci doonta. marka aad baan uga xumahay arrinkaa. waxaan leeyahay Soomaaliya gacmaha isqabsada. ayaan meediyana waxaan kula dardaarmayaa inay hawshaa wadaan, ummadda mideeyaan. shakhsi walba wuu tagayaa, laakiin waxaa la yidhi waari maysida war ha kaa haro. aniga axmed xasan cooke waa isla soo shaqaynay,
aniga qaybtii wararka Soomaalida ee Soonaan joogay asagna raadin Muqdisho joogay wuxuu ahaa macalinkaygii wuxuu ahaa tusaalahaygii iyo doolkaygii inkastoo aniga aan meediyada ku soo biiray saxaafadda dagaalada sokeeye markay dhici doonaan aan 9meeyadii adiga 89 laakiin aad iyo aad wax badan baan ka faa'iideystay dadkii soo dhaweeyay ku jiray dadkii dhiirigeliyay ku jiray ilaa ay naxariistay xasuus fiican buu iga tagay tusaale uu ahaa waa isla shaqeynay aniga isaga wax waa isla cunug dhowr goor waa isla fariisanay inkastoo aan nasiib u helin oo dagaalkii nagu dhacay oo soo kala yaacnay haddana xasuus fiican buu iga tagay ilaahay subxaanahu wa tacaala u naxariisto walaashii Sacdiye Cabdullaahi Salaad oo idin aan la shaqeynay waxaan leeyahay ilaahay samriis iimaan idinka siiyo adiga caruurtana ilaahay garabkiina ha galo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulligiin waa idin salaamaya ani magacayga waxaa la yiraahdaa Nafisa Nuur Cusmaan wixii la dhihi lahaa waa la yiri dadkan oo dhan baa u wada duceeyay anigana waa u duceynaya aniga si gaar ah Axmed Xasan Cowke kulligaan ahayn waa isla shaqeynaynay muxuu ahaa ninkaas wuxuu ahaa nin la jaan qaadi karo dadka nooc kasta oo ah dhalinyaro iyo waayeel iyo qof dhexe iyo dad dhan marka wixii uu lahaa isifooyinkiisii oo dhan waa laga soo sheekeeyay waxaan tacsi halkan uga dirayaa qoyskiisii iyo caruurtiisii eheladii asxaabtii saxaafadda iyo isboortigaba waxaan aad ugu mahad celinayaa Hayaan Media oo soo qaban qaabisa maanta annagana meel isugu kaay keentay 110 kilomitir aan soo socday inaan inta imaado oo caaw ka soo qayb galo waana u tacsiyeynaa dhammaan dadka meesha isu yimid oo dhan salaam calaykum bismillaahi raxmaani raxiim salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa dadka weynaha meesha isugu yimiday marka labaad waxaan salaamayaa safiirkeena marti inoogu ah Holland haddaan aniga ku hadlaya magaca ururka aan ka soo jeeday midnimo iyo kayga gaarka ah waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun geerida Axmed Xasan Cowke ku timid waa geeri taabatay guri walba oo Soomaaliya waayo Axmed Xasan Cowke wuxuu ahaa wariye weyn oo Soomaaliya oo meel walba laga yaqaano waxaan kaloo halkan tacsi uga dirayaa eheladiisii iyo qaraabadii iyo ilmihiisii uu ka geeriyooday gaar ahaan waxaan tacsi u dirayaa Sakariye oo aan filayo inuu booskii aabihii buuxin doono insha Allah hadduu Ilaahay yidhaaho inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Allah u naxariisto marxuumka kulli loo duceeyay Allah ducada u aqbalo horta Allah naga aqbalo ka bacdina Allah u aqbalo ani waxa ka bartay TV-ga waxaana jeclaysiiyay hooyada fiirsan jirtay marka in uu ni fiican yahay filimkiisana waa arkay clipka oo dhahayo maxaa tahay markii la dhahay waxaan ahayo dhahay Soomaali marka in oo ni Soomaalinimada jecel uu yahay waxa ku arkaysaa Soomaalida meel kasta oo uga imaatay meel kasta macal tuulooyinka yaryar looga duceynaa marka aad iyo aad ugu maasanahay dadka soo qaban qaabiyada maasanteen iyo martida nala joogto geesi ah oo wadani ah oo Soomaali ah waay haddaan nahay baha sportiga nin aniga waxaa lagu dagaalami jiray galabta Cowke hadla idaacad oo meesha fadhiyo ninka ciyaartooyda wuxuu iska dhigi jiray 10 qof oo 10 si oo magaciisa u sheegay bis okay dadkaasaan kamid ahaa aniga ana idin sheegay madaxan gashanayna lugta socotaan gashanayna Cowke inuu maanta faariyo bis sidoo wax u xarageenayo oo kaliya geesi anaga dhintay dadka waxay dhahaan geesi ninkii qori qaati oo soo dagaalmay kaliis maaha waa geesi afkiisa geesi ku noqday Allah samar iimaan kulligan Allah naga sii cidiiskii loo duceeynaayo Soomaali dhan oo ka dhintay anoo furtaan ka faa'iideysanayo ambassador keenana aad ugu mahad celinaynaa isboortiga cambar intuu wuxuu u qabtay aan ognahay qalbigeena waa ku yaala assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan tacsi u dirayaa dhammaan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday marxuumka Cowke iyo shacabka Soomaaliyeed meel waliba ay joogaan waayo marxuumku wuxuu ka geeriyooday dhammaan shacabka Soomaaliyeed anigu waa yaraa wax taariikh saas u badan kama sheegi karo balse weygii hore la soo dhaafay ayaan wariye Hollandees ah meel isugu nimid su'aal ii weydiiyay oo yiri wariye ku wareesto keebaad ugu jeclaan lahayd markaasaan iri Cowke markaasuu yiri Cowke yaa la yiraahdaa
markaasuu googolka galayo uu xoog ka baaray markaasuu wariyihii igu soo noqday oo yiri waa wariye aada u wanaagsan nasiib dara balse kuma soo wareysan waa jeclaa mar inuu i wareysto xoogga waxaasna mahad u celinayaa dhammaan bahdii soo abaabushay barnaamijkan oo aadka u qurux badan iyo dhammaan dadkii kasoo qayb galay gaar ahaan saaxiibkeyga ambassador maxamed cali isagana waa salaamaya iyo inta kasoo qayb galay iyo cayaartoodii hore oo aan ayaguna aan iloobi karin waa mahadsantiin nin oo wuxuu ahaa la wada jecel yahay meesha u tagayna ilaahay marti la jecel yahay allah ka dhigo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo firdows al-aclaana ilaahay ha ka waraabiyo axmed xasan sida la wada sheegay codkiisa wuxuu ahaa dadka saameynuu ku yeelan jiray ayaantii nuuxiyooydii noolee mawaaree nuuxiya nebigaa nafwaaye nuuxiya cawke saameynta kale oo igu lahaa waxaa ka mid ahaa maarata ayaantii hobolada aan idhaahdo heegan ay lahayd area markaa ay lahayd waa berina ay lahaayeen loodii weylaheedii waa laysku haystaa waxarihii adlayseenna waa laysku haystaa dhaaxad wablaysaye waa laysku haystaa marka ay lahaayeen anigoo ay kuwaas kooxaas iwaaleen oo macnaha aad u kacsan ayaa maxaan ku rahdaa awke waxuu soo galay faalada inuu sheego ciidamadeennii geesiyiinta ahaa meelihii ay wadamadii dhan maxaan ku rahdaa meelihii qabsadeen intuu soo sheegay oo in badan uu ka sheekeeyey uu kasoo sheegay wuxuu yidhi kuftay ruushna ma kicin karo markaas aniga waxaan joogay tuulooyin oo maarta aan maamulo dugsi ka ahay oo mahadaay weyne gadaal ka jira oo 7 gasiiradood la yiraahdo 7 gasiiradood ma ahe webiga ku soo fatahi jiri taas maarta macallimiinta u bixisay 7 gasiiradood waxaa ummadda Soomaalida ka geeriyooday wariyaasha Soomaalida midka ugu caansan runtii waqtigan xaadirka ah amaba qarnigii la soo dhaafay ee 20aad waxaan marka hore u tacsiyeenayaa ehelkii uu ka geeriyooday caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo dadka ilka ah ayaan u tacsiyeenayaa marka hore marka xiga waxaan u tacsiyeenayaa bahda suxufiyiinta Soomaaliyeed meel walba ha joogaan nooc walba ha ahaadaane waxaa marka saddexaad u tacsiyeenayaa dhammaan ummadda Soomaalida meel walba ay joogaan haddii la yiraahdo dadka Soomaalida wariyahee ugu caansan Soomaaliya waxa laga yaabaa marka ugu horeysa inay caaw ka sheegaan runtii wuxuu ahaa wariye icon ah macnaha tusaale u ah dhammaan wariyaasha Soomaalida wax badan baa laga hadlay shaqooyinkii uu soo qabtay iyo dadka sida ay u yaqaaneen aniga qof ahaan waxaan ku xasuustaa anigoo dhalin yar runtii yaa dagaalkii 77 waxa laga sheegi jiray idaacadaha wuxuu ahaa idaacadda 8 saac soo gasha 2 duhurnimo qofka ugu caansan ee la dhageysto ee aad loo jeclaa marka aniga waxaan u arkaa inuu ka qayb galay xoreyntii Soomaali galbeed waqtigaas oo uu afkiisa uga qayb galay iyo codkiisii runta unique ahaa ee la yaabka lahaa waxaan kaloo ku xasuustaa xayeysiintii riwaayadaha iyo barnaamijkii sportiga mar dhow waxaa istaagay oo isaga hadalkiisa noo soo gudbiyey runtii ciyaartoy weyn oo runtii aniga aad aan u fiirsan jiray dheereeye waxa laga yaabaa dadka qaarkiis inuu hadal ka dhaafay Soomaali galbeed buu dheeli jiray wuxuu dheeli jiray waqooyi uu dheeli jiray Soomaali galbeed maskaxdeeda ku jirto runtii bahda sportigana runtii waa in si qaas ah loogu tacsiyeeyaa sida uu dheereeye naga codsaday waxaan jeclaan lahaa in aan waxyar ku darsado arinteeda oo ah maadaama uu caawka naga tagay inaysan ahaanin
barordiiq mid ku siman oo keliya inaan isku imaano meelahan oo aanu taariikhdiisa ka hadalno kadibna aanu ka kala tagno waxaan jeclaan lahaa in especially bahda saxaafadda in ay sameeyaan maxaa la yidhaahdaa price abaalmarin sanadkiiba soo noqnoqota ee loogu magac daro axmed xasan cawke sababtoo ah taasi ayaa noqon karta waxa jooga ee hari doona ee isaga laga dhaxli doono oo aan uusan noqonin qof la iloobo marka tacsidan lagu kala tago dhammaan ummadda soomaaliyeedna waan u tacsiyeynayaa waad mahadsantihiin waxaan la wadaagaa dadkii halkan ka tacsiyeeyey geerida walaalkeen axmed xasan cawke horta ilaahay ha u naxariisto laakiin dad badan baa geeriyooda qofka bini aadanka inta uu nool yahay waxa uu soo qabto ayaa lagu qiimeeyaa oo dadka kalena ay ku qiimeeyaan waxaad arkaysaa walaalkeen sida uu nadiifka u ahaa meel kasta oo Soomaali isugu timid ayaa looga baroor diiqayaa ma aanu lahayn xuduudiyada hadda la soo dhigtay ma aanu lahayn Soomaali oo dhan buu u dhaxeeyay wariye dadku ay qiimeeyaan ayuu ahaa waxa kale oo in badan aan la xusin wala Xamso oo kamid ah dadkii ay la soo shaqeeyeen madaxtooyada Axmed wuxuu la soo shaqeeyay madaxweynihii geeriyooda Allah u naxariistay Maxamed Siyaad Barre lagama hayo ilaa iyo hadda uu u geeriyooday wixii intuu la soo shaqeynayay dad taqaana xukuumadii markay dhacdo dadku ay ka sheekayaan oo ceebo yar yar oo iska dhacayna banaanka la soo dhigaa Axmed waa la isku dayay dad badan baa isku dayay bal inay ka wareystaan bal intuu la soo shaqeynayay Siyaad Barre waxyaabihii uu ku arkay dhinaca kale laakiin waa uu diiday inuu inaba ka hadlo oo uu sheego Maxamed Siyaad Barre intuu la soo shaqeynayay sirihii ka dhaxeeyay inuu banaanka soo dhigo taasna waxay ku sheegaysaa qofka uu ahaa aniga shakhsiyan hal mar baan isaragnay Hargeysa aan ku arkay laakiin dad badan oo la shaqeeyay isla soo shaqeeyeen ayaa runtii iga sheekayay qofka uu ahaa dabeecad wanaaga ayaa ugu weyneed markii ugu dambeysay intaan u geeriyoon waxa uu metelay filim la yiraahdo qab iyo eel qabiil oo runtii ma soo bandhigi karin inuu computerka ku jira laakiin filimka maadaama la yiri dibba waxa la soo bandhigi doonaa dadkii filimka sameynayay oo aan ka waray oo aan saaxiibanahay ayaa iga sheekeeyay markuu la shaqeynayay runtii Axmed weligiis film ma aanu metelin laakiin sababtu uu metelay filimkaas waxay ahayd filimka waxa uu ku saabsan yahay iyo message-ka uu waday ayuu aaminsanaa marka wuxuu yiri anoon weligay film metelin waxaan jeclahay bal inaan filimkaas metelo oo waa erayga gabadh ay soo qaatay mar dhaweed ahayd marka la yiri yaa tahay Soomaali baan ahay marka qabiilkuna uu yahay waa qab iyo eel la isku daray marka ilaahay ha u naxariisto waxaana raacsanahay Cali Yaxye oo yiri waa loo barri doqdaa dadka markay wax wanaaga soo sameeyaan waa loo ooyaa laakiin markii irida laga baxana sheekada way dhamaataa Axmed Xasan Cawke wax lagu xusuusto gaar ahaan saxaafadii waa inay ka shaqeysaa haday jiraan maamulada iminka gudaha jira noocay rabaan ha sheegtaane astaan qaran buu ahaay isaga laftigiisa waa inay wax u sameeyaan lagu xasuusan karo ama ha noqdo xus gaar ah oo price ah ama ha noqdo meel lagu magacaabayo ayaan ayagana ka codsan lahaa marka horeysa waxaan u tacsinayaa saaxiibkeena Axmed Xasan Cawke in asagiyo dadkii uu ka dhintay qoyskii in Ilaahay jannada ka waraabiyo run ahaantii waxa waaye Axmed Xasan Cawke waxa lagu tilmaami karaa inuu ahaa nin geesi ah nin qaran ah nin muwaadin ah intii qof muwaadin lagu sifeeyay in lagu sifeyn karo ayuu ahaa ruuxantii waxaan aad u akhriyay aniga maqaal uu ka diyaariyay Yusgaraad uu bixiyay saaxiibkii Cawke saaxiibkii mikrofoonka marka maqaalkaas marka akhriso waxaad ogaanaysaa qiimaha uu leeyahay Axmed Xasan Cawke yani waxyaabaha ku jira waxa kamid ah wuxuu yiri markaan Bush House ka wada shaqeynay yani wuxuu ahay ninka kaliya ma taqaana dadka kale hata ajnabiga in la shaqeynay ay ku tusaale qaataan macnaha credibility awoodda uu leeyahay wax walba ay warfaafin leedahay inuu fuliyo ninka kaliya wada kulmiya ayuu ahaa uu yiri marka asagoo awooddaas leh ayuu haddana waxa dareemi kartaa dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dareenkooda siday u kaceen markii la yiri Axmed Xasan Cawke dhintay marka waxaan leenahay jannada Ilaahay ka waraabiyo intaas oo qof kulay in ay u duceeyeen waxaan rajaynayaa in Ilaahay jannada ka waraabiyo marka Ilaahay macna annakana ninkii kale oo mataqaana oo wax tabanaya ama wax hadal hadda ka hor jira inuu iska cafiyo waa nin marxuuma marka waa mahadsantihiin waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa dhalinyarada Hayaan Media ee barnaamijkan soo diyaarisay ayagana aad ugu mahadcelinayaa waana arrin macnaha Soomaalida halkan waxa iga muuqda nin kastoo Soomaaliya looma kala harin marka sidaasna in la isku duubnaado rajaynayaa waana mahadsantihiin
magacaygu waa cabdiraxmaan nuur abuukar kana tirsan warbaahinta Somali Cable waxaan halkan tacsi tiiraanyo leh hawadan u marinayaa dhammaan ehladii qaraabadii iyo bulshaweynta Soomaaliyeed geeridii naxdinta lahayd ee ku timid walaalkeena wariye Axmed Xasan Cawke oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Jigjiga rabbi jannadii firdawsaha ka waraabiyo walaalkeen ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo qoyskii ehladii oo ka tagay waxaan leeyahay samiri iimaan iyo badal khayr qaba Allah idinka siiyo aad u mahadsantihiin qaybtii koobaad ee kulanka ayaa xuska iyo xusuusta Cawke ayaa inta aan kaga gudbaynaa waxaan guda gali doonaa qaybtii ciyaartii kubadda miiska oo maanta rabno inaanu ku eegno Magan iyo danjirihii hore ee Soomaaliya cali Ameerika marka ciyaartaas ay noo dhamaato iyaduna qayb ka ah ciyaartaasi waxaan rabnaa inaanu si degan u daawano maadaama ay qayb ka tahay barnaamijka aanu ku jirno telefishinkana ka soo bixi doonta marka inaanu si degan oo qurux badan aanu u daawano One more game. Okay, I'll خلاص كده؟ اسمع One more game. خلاص كده؟ Thank you. Thank you. run ahaantii muhiimadda waxay tahay muhiimadda aan u cayaarna waxay ahayd nabadda qiimaha ay leedahay ambassadorkeena wuxuu ku dadaalaa mar walba arrinta nabadda iyo qiimaha ay nabadda tahay sportsku waxay ka qayb qaadanaysaa nabadda balse message-ka ugu weyn waxay tahay maadaama ay hadda socdo dagaalada sokeeye dagaalo labada gobol Puntland iyo Galmudug muhiimadda ugu weyn waxay tahay inaan message u gudbino walaalaheena in ay heshiyaan waxaan beeynaa marka hore saaxiibkay Magan oo maanta ku guuleystay ciyaarta ciyaartana waxa waa weli ma dhamaanin tii hore naga guuleystay tan guuleystay ciyaar dambe doo yiraahdo waxaan Magan ku casuumiyaa inaan ku ciyaarno xamar insha Allah waxaan rabaa inaan sirax siiso soo sheegay Magan anaga ayamaha anaga waxaan ku jiray safarkii nabadda oo aan ku maray wadanka soo maray gudihiisa waxaan aad iyo aad ugu xunnahay aniga Magan adayto message baa bixino oo baaq nabadeed ayaan dirnay kaasoo ahaa in aan aad ugu xunnahay waxa ka socdo magaalada Galkacyo jadaal sheegay Soomaaliya waa laga baxay dagaalkii dagaal kuma jiri karno waxaan ku jirnaa 2015 in maanta oo hadeertaan bila ka dhameeyeen sanadka 2016 in wiilashii la isku dhiibo qoryo dad ay dhintaan la barakaco waxa waaye looma joogo marka insha Allah taala kulligeen ba aan istaagno arrintaas laga hadlo laga doodo hal la dhaleeceeyo waa qalad maamuladana Puntland iyo Galmudugna waxaan u baaqaynaa in si degdeg ah ay u joojiyaan dagaalka odayaashana iyo mataqaawrada leeyahay haweenkan ay istaagaan joojiyada dagaalka insha Allah taala marka aad iyo aad baa maashay markale Magan hadiya jeer wuxuu jecel yahay inuu hadiyadaha gudbiyo oo siiyo qof marka laakiin waxaan raaci doonaa wadada ay baashu leedahay waa ku guuleysatay saaxiibkan Canada uu ka yimid laftigiisu waa guul dareysamadii karan laakiin waa kula guula waa guusha oo kula hantay aad u mahadsan yahay waxaan anigu karin buu sameeyay intaan anigu xisaabta xitaa galmud sida loo xisaabinayo aad u mahadsan tahay waxaan jecelahay koobkan in la guddoonsiiyo Magan waxaan jecelahay inuu guddoonsiyo baashu waa la kala leeyahay moogta marka dheereeye oo aan runtii markuu hadlayay hadalkiisa jirraac badan aniga ugu abuuray
cawkana uu ka hadlayay sida hadda uu ii sheegay ambasadorkana laftigiisa wuxuu ka mid yahay buu leeyahay magan raggii wax soo baray marka koobkaan aan jeclahay inaan kugu sharfo kadibna aad nagu guddoonsiiso magan koobkaasi waxa uu isagu ugu dambeeyey oo ka mid ahaa xuska iyo xusuusta cawke oo aan galabta isugu nimid caawa magaalada daheeg ee wadanka Holland magan baa hantay magan laftigiisu wuxuu jecel yahay inuu mar kale waxaan maqli jiray gurigaaga ninkaas oo nin kala gala guriga kaas oo dhan ka rooni marka koobkaas uu rabaa mar kale inuu ninka uu ka badiyo oo siiyo ayo magan maadaama uu koobkan yahay koobkii nabadda iyo xuska iyo xusuuska cawke aniguna aan u arko maxamed cali americo shakhsiga ama siyaasiga keliya xilligan maanta la joogo oo nabadda u orodaya saa aawadeed waxaan jeclahay inaan siiyo maxamed cali americo وتعي داودياش قيمها بدن جودهان برنامجكي عن يدين كيسو جدينيني حسني حسوس تعوكي عن كده ونيسين تلفزيون عالمي على يونيفرسال تي في هي تلفزيون كلا الصوماليات فإنت عيان وكسو أميرنا وحن آدهم هالدينية أصحاب تصيد حجر لان تاهي ما أنت هوش إنه لقبتي يجوا الريان ورياش ما أنت النور تاجنا عبد الرحمن النور وسوى حركة آد برنامج كان قصو شقيقي على كده لها توفيق وانا سجن أمها العلينية وكم من الولايات الصومالية الوطن كلهم سي علي وسجن التاجن وانا سجن أمها العلينية ضل مرة نوفض ضيس فسيلة وأمها العلينية ولاشين قيمة بدن ونلفض ضيس لفتجنا ضدكم مركي حرادة إن السنواركم كم مرجن أيضا أمها العلينية ولا لها جبوتي صومالي ملك استويجو تما كلام الله نوري مقعي وصوّد صحيح يعني وجهي إنه مقع نوري قديمه ولكن نوري على شيء هذا وما أتصنتهاي تاني يكون الدمر من بحين كيتين الناس إذا ينبت قليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقريرا بإذن الله أمان الله